Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Mar kale iyo barnaamijkeena imtixaanaha ahaa ayaanu ka sameynay silsiladii Soomaaliyeed ee aadka caanka u ahayd ee magaceeda la oran jiray Siinley. Haddaba maanta waxaanu idin soo gudbinaynaa iyadoo cod iyo qoraal labadaba in la wadaagi doonaa heestii 10aad ee silsiladaas caanka ah ee Siinley. heestaas 10aad ayaa waxaa noo tirinaya oo silsiladii ku soo biiray nin la oran jiray Yuusuf Jaamac oo ku magac dheeraa Yuusuf Cafar. Haddaba Yuusuf Cafar ayaa silsilada wuxuu kula soo biiray hees magaceeda uu bixiyay Muruqa Laba Suul. Yuusuf Cafar isagu wuxuu si toos ah oo aan gabasho lahayn u weerarayaa Cabdiqays, wuxuuna la safan yahay oo uu hiil iyo hooba la garab taagan yahay Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi. Haddaba Yuusuf Cafar ayaa heestiisaan wuxuu ku sheegayaa in ujeedada hawsha laga hadlayo ee silsiladu ku socoto ay tahay xoreyntii Jabuuti. Cabdiqaysna uu intaas fahmi laayahay, wuxuuna ku bilaabay sida tan: iskiinin u socdaalo sirba aan lahaynoo suufiyoo wareer qaba sahankaba ayuu diray. Aayaheeda saxarliyo waxa ay ku sugan tahay, yaa su'aalay Qaysoo soo wari ayaa yidhi. Surmaseegto weeye sidaa taa ku dhaafo sanadkeenan maanta ah, subciskiyo heesaha saxarlada ku taxalluqa. Waa muruqi laba suul, nin kastana siduu rabo aqoontiisu siisana. Cabdow haw sifaystee warka aan ku siiyee, anigu waaba sahayaa sida saynla aaro gaajooday sabanoo sanqadhii baxaysiyo. Saninaya baaqaan hadba sara fadhiistaa, hurda waan ka saahiday waxaa salalka igu riday. Aan la sara sirqaysnahay tiro 108,000 sadkii ay lahaayeen, sula laga maroorsaday laga seexan maayee. Suluf iyo abaar iyo surmi iyo haraad iyo midhahoo la sayroo lagu gaaro socodkoo, waxaan saatirtuugnaba markii ay samaatee sareedadu ay dhalatee. Seeftiyo bilaawaha galka aan ka siibnee, sufur laga afuufee. Faraskana sitaac iyo heensaha la saaree, sunsun loo dhaqaaqiyo la sugayay siigadu inay sare u duushaa. Ninka yidhi sal guurtee saadaaladii iyo yididiila samidii, labadiiba sayroo socodkiina gaabsaday. Hadalkii sirgacayaa malaha wuu sahwiyayoo sahal bay ku dhaaftee. Mase oga aqoon liid halistuu sameeyiyo, inuu nolol dad badan sigay waxsuu noola siman yahay. Sabigii carruurtee markii ay safaadeen, siilaanyadii mulac ku sargooyay leebku sargofsiga jilbow dhacay. Doqontaa sideedaba sarar loogu riday ciid sadbursiinya moodee. Waxaan anigu soo siday cirkoo sagal la mariyiyo, sumadeenna caanka ah samaydii ku joogtee. Xaqaa gacan sarreeyee sina kuma nagaanee, safarkeenna kaa xiga siyoolowda hoosiyo xamarayda sare iyo. Markaan saylac soo furo tikhil sii roggeediyo, sanaageeda oboq iyo torjarana ku soo simo. Kii yidhi ha sugin iyo kii yidhi ha suginaba, siday yeeli doonaan sidiisaba wankii weyn. Jeerood sadqaysoo dhegta gowrac lala simo, ma arkaayo samadoo sare wax uma eegee. 8 guuradeennii 3dii gu'ee hore, subaxdaa wixii nool cidda socodka lagu tumo. Marka saxalku uu baxo balaan eegno sida taal, ayuu yidhi Yuusuf Jaamac.
oo ku magac dheeraa Yuusuf Cafar oo heestii 10aad ee silsiladda caanka ee Siinley inoo tirinayay. Fadlan haddaad channel ku cusub tahay oo ay tahay markii koowaad oo aad soo booqato, fadlan subscribe saar. haddaa horey ugu jirayna fiidiyowga share garee lana wadaag asxaabtaada si aad ula socoto heesihii oo dhammaystiran. heesahaas oo ka kooban cod iyo qoraal labadaba ah waanu inoo soo gudbin doono silsiladdii oo dhammaystiran.